بسم الله. السلام عليكم واتوجر سفي عن إيدغيستا لغا جوجي ففوزلا سفي عن هلا إيدغيستا أنا وفرين أدقبان إذين هيا Mheshimiwa Rais, karibu Wajia, na tunashukuru kwa dhati maendeleo umetuletea pamoja na kutia saini hiyo kauli ambayo inaondoa vetting kwa IDs. Kwa kweli leo tunajisikia kama tumepata uhuru kwa mara ya pili, na mimi sijawahi dhania kwamba siku ya leo, siku kama leo inaweza fika mpaka watu ambao wanaishi katika maeneo ya mipaka wanaweza wakatolewa hiyo process ya vetting ambayo imekuwa imetusumbua sana na ikawafanya wengi kutopata document ambao iko na umuhimu kama ID cards. Walaalayaal aan isdhegaysano raalli ahaada. Maanta waxay la mid tahay inaan mar kale xorriyad qaadanay. Inta fahmaysa inta ID card ku dhibtootay baa fahmaysa. Walaalayaal maanta waxay noola mid tahay inaan xorriyadda dib u qaadanay taariikh 5 bisha 2 2025 aad iyo aad maalin loo xuso inay noqoto insha Allahu tacaala markii processkii vettingka ee ciyaalkayaga loogu diidayay inay qaataan sharciga aqoonsiga uu naga saaray madaxweyne William Ruto. Soomaaliya haddaad tihiinna waan ogahay marka doorashada la gaara aniga reer quraca, aniga reer qansaxa, aniga reer hagara intaan ka baxno aan midowno. haddaan rabna inaan guulaysanno waddankan waa inaan midaynaa codkeenna oo aan hal meel isugu geynaa. haddii madaxweynaha uusan mataqaanaa aadan dooranin waxaa imaanaya mid kale oo soo celiya vettingkii ID cardska. war ma isku raacsannahay madaxweyne Ruto inaan dooranno? ma isku raacsannahay? ma isku wada raacsannahay? Mheshimiwa Rais, watu wa Wajia wameamua na wamekata kauli kwamba watakaa na wewe na watawacha kuhamahama, na sisi kutoka moyoni mwetu tunashukuru wewe kwa dhati. Asanteni sana.